magaceedu saddexan waa Nada Maxamed Cusmaan. magaca alqalca ee caanka ku tahay waa naanaysteeda waana magaca deegaan hoos yimaada magaalada Khartoum ee caasimadda dalkaasi Suudaan. Nada ayaa ku noolee deegaankaasi ilaa markii dambe ay heesaheedii ka soo muuqdaan dalkaasi bartamihii sagaashamaadkii ee qarnigii 20aad. waxay dhalatay 1dii bishii Febraayo ee sanadkii 1975 waxayna fanaannimada ku dhex jirtaa 22 sano. wiilka Soomaaliga ah oo meel ku qoro in gabadhan tahay garoob waxayna soo guursatay 2 jeer oo hore, laakiin nasiib xumo labadii nin waa ay ka geeriyoodeen taasoo ah qadarta Rabbi. ninkeedii koowaad waxaa lagu magacaabi jiray Waliid Al-Xajaazi, kaasoo guursaday Nada oo ku jirta da'da 17 sano. wuxuuna kaalin ku lahaa inay Nada ku dhiirato heesaha maadaama uu heesaha bari jiray. waxayna u dhashay wiilkeedii Waa'il. kadib dhimashadii Al-Xajaazi waxay Nada guursatay Axmed Al-Falaki oo isagana dhintay sanadkii 2009. waxayna u dhashay gabar qurux badan oo lagu magacaabo Wadda. Nada ayaa mar la weydiiyey inay mar saddexaad guursan doonto waxayna ku jawaabtay haa. waxayse sheegtay inayna guursan doonin nin xaas leh. haddana waxaa jira inay Nada diiday guurka niman badan oo ganacsado iyo madax isugu jira. Nada ayaa markan u soo jeesatay dhanka iyo dhalinyarada maadaama oo ay labadii jeer ay soo guursatay 2 nin oo da ahaan aad ugu waaweynaa. waxaana mar suuqa u galay inay guursatay wiilkii dhalinyarada ahaa ee Nuur Al-Sha'am maadaama ay aad isugu dhawaayeen, taasoo ugu dambeyntii been noqotay. waana fanaanad baraha bulshada aad loogu hadalhayo welina lama guursan. tirada heesaha ay ku luuqaysay waxay gaarayaan 240 heeso. 200 oo ka mid ah heesahaasi waa kuwa iyada u qaasa oo ay magaceedii ku qoran yihiin. 40 soo harayna badankoodii waa heeso hore loogu luuqeeyey kuwaasoo ka mid ahaa heesihii loogu jeclaa waqtigooda. Nada ayaa waxay la soo shaqaysay abwaano iyo dad aad ugu fiican laxanka heesaha, waxaana jira 32 heesood oo iyada la xamaysay. gabadhan ay wiilasha Soomaalida ah ku waasheen waxa ay ka heshaa oo heesaheedii u badan yihiin kuwa xamaasadda leh ee qayb ka mid ah erayada heesahaasi leesla hooriyo. waxayna inta badan heesaheedii ku ammaantaa ragga sida deeqsanimadooda iyo geesinimadooda. waana sababta in wiilasha caalamka ay wadnaha gacanta saartaan marka ay maqlaan magaceeda, ayagoo weliba ay ka muuqato qiiro. aan u imaadee wiilasha iyo gabdhaha Soomaalida oo aad ugu xiran barta Facebook ee Nada. marka aad booqato bartaasi oo aad istiraahdo wax ka aqri komantiyada laga dhiibtay, waxaad arkaysaa wiilal badan oo Soomaali ah oo ku calaacalaya fariin ay ku qoran tahay af Soomaali iyo erayo jecel iyo kuwa ammaana oo ku socda gabadhaasi. waxaana jirta fariin mahadcelina oo ay u soo dirtay shucuubta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku xiran Facebook-geeda oo hadda gaaray 2 milyan. waxayna sheegtay inay goordhow imaan doonto dhulka Soomaalida. kadib fariintaasi waxaa jirtay hadalheen badan oo ku saabsan imaatinkeeda, waxaadna arkaysaa wiilal Soomaaliyeed oo la dabaaldegaya hadalkaasi. farqiga u dhaxeeya waxa weeye Nada qalca waad arkaysaa kuris weey oo wax nool oo nin waliba oo Soomaaliya maanta naagta qoriga ku aaminaya waa Nada qalca. marka waxaan leeyahay soo dhaweeya gabadha show yahay inoo qabataan u heeseedan aad u dhageysta. haddaba taabadelkeeda waxaa jira in hablaha Soomaalida ay aad ugu xanaaqaan magaca Nada, waxaana ay ku eedeeyaan ama ay u yeelaan sifo ka duwan tan ragga Soomaalida u muuqata. waxaadna arkaysaa gabdho Soomaaliyeed oo wiilasha ku haysta waxa ay Nada ku arkeen ay gabdhaha Soomaaliya ku arki waayeen. hablaha Soomaaliyeed waa hablo aad u qiimo badan. gabadh kotonjira maanta hadii gabadh dhalinyaro ahaan lahayd waan qaadan lahaa, laakiin maanta gabadh kotonjira waxay ku doonaan ma garanayo, malaa lacag bay ku tumayaan jeebka dee raggii Soomaalida waxba. si kastaba ha ahaatee, fanaanadan ayaa hadda waxay ka mid tahay kuwa ugu hadalhaynta badan uguna saamaynta badan qaaradaha adduunka oo dhan. waana 46 jir isu aragta gabar 18 jira, waxayna daqiiqad kasta ammaan iyo bogaadin kala kulantaa wiilasha caalamka oo dhan. ugu dambeyntii waxaan ku soo koobayaa uguna baaqayaa wiilasha Soomaaliyeed inay ogaadaan inaan la heli karin qiimo u dhigma hablaheena Soomaaliyeed meel kastoo ay dunida ka joogaan.